waxaan u sheegaynaa ragga saakana soo weeraray inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay afweyne oo aabahooda waxaan u sheegaynaa inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay kuwa waxmoodayaan Morgan iyagan kuwa soo qaadeen waxaan u sheegaynaa inayna soo xuseen dagaaladii 30 sano ka hor dalka ka dhacay iyo wixii soo maray waxa weeye aan u sheegayaa musabbixi iyo dawladdiisa in ay dawladdiisa gobolka in Puntland ay diyaar u tahay dalka inay difaacdo iska celiso hadii wali cid ka yeeli mayso habar wax qabiil tolaacay nina ka yeeli maayo meeshii baado waxa meesha laga qabsaday Puntland kaliya ma waxa loo jeedaa oo in la dumiyo la rabaa oo qoladan koonfur ka dagaalamaysa oo maaragtay muqaawamada la baxday iyo maamulka waqooyiga ka dhisan oo riyaal madaxda ay heshiis ku yihiin Puntland iyo dawladda federaalka oo Soomaaliya labadaba aan dumin